warbaahinta Eritrea ayaa soo bandhigtay xog cusub oo ka geedaaman safarkii dhawaan uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay Asmara qorshaha Asiisi Afwerki oo ka leeyahay ciidamada u tababaraya Soomaaliya munaafaqada iyo laba wajilnimada ku wajahan iskaashiga labada dal Soomaaliya iyo Eritrea iyo xogo kale ayaa idinku soo gudbinayna warbixinteena maanta balse marka hore muuqaalka like saar sina share garay adigoo sidoo kale waxay fikirkaaga ah noogu reebi kara qaybta commentiga ee hoose toddobaadkii hore madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqashadiisii labaad oo maalmo qaadatay ku tagay dalka Eritrea muddo dhowr bilood gudahood madaxweynaha ayaa muddadii uu ku sugnaa Eritrea wuxuu la tashiyo ballaaran la yeeshay madaxda dalkaasi isagoo sidoo kalena booqashooyin kala duwan ku tagay mashaariic horumarineed oo dalkaasi ka socota iyo xariyaha lagu tababarayo ciidamada Soomaaliya waxa uu muujiyay inuu ku faraxsan yahay xoojinta xiriirka Soomaaliya hase yeeshee warbaahinta Eritrea oo maqaalo kala duwan ka qortay booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee dalkaasi iyo in reer galbeedka aysan ku faraxsaneen isku soo dhawaashaha Soomaaliya Eritrea gaar ahaan dhinacyada difaaca iyo amniga waxa dhalisay guux weyn oo diidma aan la micnay karin oo ka imaanaysa reer galbeedka waa sida warbaahinta Eritrea ku warantay bilihii iyo sanadii la soo dhaafay dhowr wadan oo reer galbeed ah oo weeliyeen tiro wariyaal shisheeye ayaa muujiyay dhaleeceen khaldan iyo diidma la taaban karo oo ku wajahan dadaalka Soomaaliya Eritrea ee lagu xoojinayo abuurista iskaashi dhab ah iyo wax wada qabsi caqabadaha labada dhinac sida ay qortay warbaahinta Eritrea September 2018 Eritrea iyo Soomaaliya oo markaasi kala hogaaminayeen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Asiisi Afwerki iyo sidoo kale Ethiopia ayaa qalinka ku duugay heshiis iskaashi oo dhinacyo badan leh halka horaantii sanadkii bartamihii bishii Luulyo Eritrea iyo Soomaaliya ay kala sixideen heshiis lagu xoojinayo iskaashiga dhinacyo badan leh mid ka mid ah bartilmaameedka gaarka ah ee dhaleeceynta joogtada ah iyo ceebeynta laba kulmay ayaa iskaashiga amniga ee sii kordhaya ee labada wadan iyadoo kooxaha qaar ee xitaa faafiyeen sheekooyin been abuur ah oo aan sal iyo raatoona mid u lahayn inkastoo ay leedahay taariikh qani ah haddana dhowr iyo 10 sano ee la soo dhaafay Soomaaliya waxay nasiib darro ah inay ku sufoobeen dagaalo sokeeyo oo daba dheeraaday foodo amni darro iyo al-shabaab si kastaba ha ahaatee guud ahaan dalka dadka adkeysiga leh waxay sii wadeen raadinta nabadda waxayna ka shaqeeyeen hagaajinta xaaladda dalka iyadoo sanadii ugu dambeeyay ee ku lug lahaayeen dadaalo cusub oo lagu dhisayo dawlad amniga sugi karta tababarka ciidamada Soomaaliya Eritrea ayay warbaahinta dalkaasi sheegtay inuu u yimid kadib codsi ka yimid dawladda Soomaaliya waa inuu ahaadaa mid aan muran ka dhalin adduunka oo dhan qaab dhismeedka gobolka ama laba geesoodka ee difaaca iyo iskaashiga amni ayaa mid caadi ah oo weli fircoon waxay ku yimaadaan awood iyo go'aan ka soo baxa dawladaha madaxa bannaan ee qusayso mana jirto dawlado kale oo xaq u leh ama awooda diidmo u leh inay ansixiyaan ama go'aamiyaan qaab dhismeedka amniga iyo difaaca u dhaxeeya dawlad goboleedka iyagoo ka duulaya rabitaankooda iyo si waafaqsan heshiiska caadiga ah ee wada galaan muddo sanad ah iyadoo lagu kasbanayo hindise maxalli ah oo ay hogaamiyaan hindise wadani ah oo awood u leh in lagu nabadgeliyo ama lagu xasiliyo qaranka loona ogaado Soomaalida in ugu dambeyn mas'uul ka noqdeen mustaqbalkooda reer galbeedka oo wata calan guduudan ayaa raacaya istaraatiijiyad maalgelinta iyo hubeynta qaabqablayaal dagaal kuwaas oo kaliya burburiyay xasuusii sanadii la soo dhaafay Mareykanka wuxuu Soomaaliya ka fuliyay in ka badan 250 weerar oo xagga cirka ah iyo weerar dhulka ah taas oo keentay in dhibanayaal rayid ah oo aad u tiro badan iyadoo la tababarayo lana hubinayo ciidamo kala duwan iyo malaayiin gaar ah oo dhanka ammaanka iyadoo balaayiinka lagu bixinayo arrimaha bini'aadanimada inkastoo ay taasi jirto
ayaa sanadii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay si joogto ah ula kulmaysay dhacdooyin islaamiyiinta xag jirka ah iyo dhismashada al-shabaab waxayna weli tahay mid awood badan oo qaadi karta weerar qalafsan toddobaadyo ka hor waxaa si arxaan darro ugu xasuuqday ku dhowaad 150 qof bartamaha magaalada Muqdisho ee caasimadda sida warbaahintu ku warantay